ماليه أرنت مسألة والله بالله تلاهي حسن مصيب النهر سيدي إثيوبيانكي إيجابا كحري بي مصر حد وحري ناو سعدي يقدم بي حرين مركي حرايين وحي صوبان لغين patriotic missiles ballistic missiles أنا أيان دويدان كوشاي وحان كوداي وحالا فيلايا إثيوبيا إنay haysato ballistic missiles waa maxay gantaalada guuxooda ka dheereeya waay waa kuwii Ukraine lagu cadaabay waay inay haysato ayaa loo badinayaa ayaan ku dhahay maanta ma soo bandhigeen mise ma soo bandhigin Masar miyaha biyahaas ilaantooda ma noolaan karaan way baaba'ayaan masaarida haddii biyahaas ay xirmaan Soomaana maxay Ethiopiaanka biyaha u xireen dagaal aan rabnaaba inaan kala baxno annaga Masar haddii marba xamra shixnadeedu ay soo dhigato okay ballistic missiles kan ma kala nooca kan hadda Ethiopia ay soo bandhigtay baraha bulshada gal ani xataa waa soo dhigay ballistic missile ka ay soo bandhigtay M20 laha ama ma 20 af Soomaaliga M20 gan muxuu yahay qubarada oo hubka ku takhasustay weydiiya optigiisu qatar ku yahay aniga optiga waxaan ka aqaana hadda ma fahmaysaa 850 kilo warhead ayuu qaadaa halkii mar warhead macni gantaalka dhaxaya quwadiisu waa 850 kilogram waay almost 1 kilogram buu ku dhow yahay gantaalkaas oo guuxiisa ka dheereeya ma intaasa مسافة انت إن لك بوغاري كرا 580 كيلومتر بوغاري كرا اوغو باليستيكا وكلا ديريا isaga kala model ah sida baabuurta maartay ay u kala dheereeyaan kala model ay u yihiin marka sida awgeed M20 ga Ethiopia maanta ay soo bandhigtay waa 580 kilomitir ayuu garaacaya qiyaas baydhabo iyo xamar waa imisa 200 iyo 47 waay marka laga soo qaado argada lambar 4 ilaa iyo afar irdoodka magaalada Baydhabo xudur iyo Baydhabo imisa isu jirtaa 180 kilomitir waay argada xudur iyo afar irdoodka Baydhabo 180 kilomitir waxaad u geysaa 240 lambar 4 aan ka soo bilaabayna ilaa iyo xudur xisaab isii waxaad u sii geysaa xudur inta ay u sii jirto ceel berde ilaan hadda ceel berday fadhiyaan bal 80 kilomitirna ugu sii dar ma arkaysa meesha la soo dhigay difaacyada afdheer ya macnihi ugu sii dar 580 xamar orod bay ku duqeyn karaan laba gantaal haddii xamar lagu soo dhuftana ilaahay baan ku dhaartay sheekadii ahayd BMana lagu garaacay iyo furuq haduu yimaado waraabe waa faraku leef wallahi billahi tallahi waan dhaartay Ukraine horta 10 ku qaata haddii laba gantaal lagu dhufto reer hebel baan nahay iyo laandheeraan nahay iyo annaga sidaas ah iyo wallahi ashahaatinka haddaad qabsataan nasiib waad iloobaysaan waayo qofka duu cabsado mararka qaar yaasiinka taa uu hilmaama qofka muslimka ah qofkii ilaahay iimaanka dajiyay oo macnii geesinimada dhex dajiyay ma ahane marka boodboodkan iyo jeengadahan iyo macnii daarahan afarta xabo oo xaaraanta lagu dhisay iyo way isla hadli doonaan dadka macnii maanta faanahay fiqigan hadda leh ka whistling means af ingiriis inuu yaqaan oo kale ka whistling means dabadhilif waa kuwii naasiinta macnii ilma dabadhilifow raxweyn uu ku dhaga hadlaya isaga oo macnii TPLF ah isaga oo markaysa passport macnii Djiboutiana wata isaga oo passport Tigray ilaa hadda diblomaasigi wata hadda ma fahmaysaa Masar dagaal ma galaysaa boqolkiiba boqol ma ku dhahay boqolkiiba 200 way galaysaa way ku qasban tahay sandulle Ethiopia maxay rabtaa Ethiopia waxay doonaysaa in la kala baxo qorsheedu waa maxay marka daamkan Afrika waa 54 dal Soomaan korontada qaaradda Afrika haddaysan wada kaafin oo lacag aysan ka qaadanin
waxay doonaysaa boqolkiiba 20 iyo boqolkiiba 50% African countries wadamada Afrikaanka 720 wadan ilaa iyo 30 wadan markay ugu yar tahay inay koronto siisay doonaysaa wayna awoodi kartaa lacagna ay ka qaadato iyadoo meesheeda fadhida biyahaasi korontada ay ka dhalisay bangiyada lacag ay uga buuxsamaan Ethiopia faqriga meesha dhiisha faqriga ay iska dhigto yaa maalgeliyay marka korontadaasi Turki iyo Imaaraat baa maalgeliyay Turkina balaayin buu ku leeyahay ama Ethiopia iyo Masar haday is weeraraan Turki ma difaacaya Masar mise Ethiopia difaacaya sabab hantidiisa taal Imaaraat kan intuu difaacaya kuwa uu soo diraya laakiin Ethiopia difaacaya Tigreegi hatta uu la dilay sabab beeraha waaweyn ee Imaaraat hadda uu samaystay oo maal gashaday Masar kuma yaalaan Ethiopia ku yaalaan suuqa weyn dad badni baa la isku dagaalay meesha la rabo in loo ganacsi geeyana waa 120 milyan oo lagu tartamayo waxa la yiraahdaa suuqa dihan ayaa lahaa intaasi ma iga haysaa maxaa soo dadajiyay daamkan inay xidho ballistic missiles inay soo bandhigto maantay mid kale ku darso masaaridii Soomaaliya timaaday hawsheedu waa fashil Xasan Sheekh Maxamuud fashil bay taagan tahay arinteedu say u taagan tahay oo ku baraya dhageyso masaarida markii ay imaanaysay African Union December iyo waqtiyadaasi yani golaha nabadgeliyada qaaradda Afrika inay iyadu mas'uul ka noqonayso ayay ku taamaysay waxay rabtay in lacagta UN ay dhiibaan daabulaadda iyo qarashka oo dhan UN inuu bixiyo sidaas ay macnaheedu ku tashadeen it's open sidaas ay ku tashadeen laakiin UN-ki qarash ma dhiibin waqtigana wuu ku socdaa masaari waxay go'aansatay marka inay iyadu maadaama dan ay leedahay hawiyana isbahaysi ay isla yihiin taariikhda la og yahay inay iyadu iskeento horta ma arkaysa iyada is soo kaliftay shixnadahan soo dagay ilaa iyo hadda 60 sarkaal oo nabad sugid ah saraakiisha ugu sareysa masaarida kamidka ah ayaa ku sugan magaalada Muqdisho now aan kula hadlayo shixnado hub ah ayay soo dagsadeen ma arkaysa habeenadan oo dhan waxa weey qalabkooda ay soo dagsanayeen ama UN-ki soo haray UN-ki intaanan u gudbin qorshaha wuxuu ku fashilmay baan ku sheegayaa masaarida in la geeyo dhulka digil aw mirifle ay ku timaaday baraawo iyo marka in la geeyo ilaa iyo bakoolna inay tagto iyadoo marka danteedu waxay ahayd Soomaaliyana in qudaarta iyo hilbaha iyo naagaha ay ka waswasto sidoo kalena ma arkaysa macnaheedu hanjabaad ay uga dhigto imaanshaheeda iyadoo meeshan nimcada isaga raaxaysanaysa qofna aan ka dhiman Ethiopia inay cabsi geliso laakiin dabagaabta ama Ethiopiaanka wayba ka dhabeeyeenba Masar ma timaadaha waxaan reebanayna malahan waqi hubkii ay soo rareen saldhigyada ay soo rareen ay adkeeyeen oo hub baydhabo taangiye ay keeneen wax kasta ay keeneen saas miyaha xisaabta markay sida isu rogtay UN-ki waxay yiraahdeen waa iskeenay ogolaansho si haddana hadii aadna soo qaadi kari weydeen ya ogolaansho ma dhiibin UN-ka Masar Soomaaliya inay tagto African Union iyada kamid ah iyadoo kamid ahaynba way ka aamuseen UN-ki marka maxay dhaheen annagu Soomaali ishaan ka dayayna waa xalanaad ogow warka macni rasiinkiisa aan ku siin aniga annaga Soomaali ishaan ka fiirinayna indhahan ka fiirinayna haday isdilaan waa eegayna hadaysan isdilin waa eegayna